sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo mas'uuliya haadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu furaska siday uga faa'iideynayeen nabiyullaahi yuusuf oo xabsi ku jira oo laba wiil u yimaadeen wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa innii araanii acsiru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل طير منه لبا ويل با حبسك الله قال يوم يدوح يدي خيان أركي أنيقو خمر ولا قاية متكي كلنا وحيدي أنيقو خبز مدح كسيدة وشمبرعون أيام بانركي إن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين بيداهي نو شرح تأويل كالرياضة النوشة وحنكو أرقنا قف صوبنا ونكسرنا طهي نبي الله يوسف انت أنو الرياضة ودو الشرح وحو كبلا بينو يسوي سو الشرح يوحى آمن سيء يدين الرمي سيء إني تركت ملة قوم دول بان كايم بيود أنا إلهي بالرميسنين ومشركين وحان راعي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبايا شيء دين تودي توحيد كهيد بان راعي بولي markuu isu sheegay wuxuu rumaysan yahay iyo wuxuu yahay intaanu u fasirin riyadoodii fursada yar buu ka faa'iideystay dabeetana markaasuu leeyahay yaa saaxibay sijni arbabun mutafarriquuna khayrun am illahu alwaahid alqahhar warma ilaahiya badan in la raaca ayaa fiican mise rabbu samaawaati wal ardi in raacdaan baa wanaagsan dacwo bilaabay waa fursad su'aal la weydiiyey buu isku dayayaa inuu ka jawaabo intaanu jawaabta siinin inuu ka faa'iideysto wuxuu rumaysanaa inuu dadka kan u sharxo imisa fursaa ku soo martay nolosha imisa tijaaro la wadaagtaan imisa jaartiin imisa saaxiibtiin imisa iskuul wada dhigataan imisa jaamacadda wada joogtaan imisa isku dhadhowdiin imisa wax kala iibsa imisa fursaa ku soo martay intee baad noloshaada ilaahay diintiisa uga faa'iideysay wixii fursad ku soo maray hadda furaska dhaqaaluhu idinma dhaafaan hadday kuu bidhaanto meel yaraad sileeday waxbaa laga helayaa waad qodaan qofna kama tago laakiin fursadaha diinta ma tijaabinaa inaynu qodno oo isku dayno inaynu dadka diinta u sheegno ayuha alaxiba dacwadda tani afarta wadaad ma saara waxay saarantahay qof kastoo muslima diintan inuu xambaaro qof kastoo muslima bay saarantahay hadduu sultaan yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu sarkaal yahay hadduu taajir yahay qof kasta meelo badan oo aan aniga layga dhegaysanayn baa adiga lagaa dhegaysanaya waa ama odaynimo lagugu qadarinaya ama hantidaada lagugu qadarinaya ama booska dowladda aad ka joogto lagugu qadarinaya oo dadku ay wax kaa dhegaysanayaan aakhira ilaahay wuu ku weydiinayaa diintii maxaad ugu qabatay waxaan ku siiyey waxaad haysatay maxaad diintii ugu qabatay ninkaas muslimka ah rabbi quraankiisa uu ku qoray ee ilaa qiyaami saaca quraanka inuu ilaahay ugu dhawaanayno akhrinayno weedha laga tilmaamay waa inuu yidhi tabacu lmursaliin waa rususha raaca buu ku yidhi rususha raaca ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaaf la weydiisto الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى قصة نكاس وحي نوغت الماما اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والراعب يريد أن أجري ويدي سنين waxay culimadu yidhaahdaan axsan wasiila lidacwa waa inaad qofka dan ka lahayn hadduu qofku kugu tuhmo inaad mansab iyo maamuus ku doonayso inaad lacag iyo xoolo ku doonayso
inaad jeebkiisa ku baadhanayso waxay u badan tahay inaanu hore kuu dhegaysanin walidaalik ayuu ninkani markuu tolkii la hadlayay wuxuu leeyahay inay hanuunsan yihiin wuxuu ka horu mariyey inaanay dan kala lahayn ittabicuu man laa yas'alukum ajran ajar adduun inaanay idinka doonaynin maxaynu diinta u sheegaynaa inaynu aakhiro ku badbaadno inaynu ilaahay ku raalli gelinno inaan ilaahay ajar kaga helo ولذلك baa ilaahay rusushiisa markuu ka warramayo fii suurati shucaraa ama suwarka kaleba fattaquu llaha waatiicuun markay yidhaahdaan maxay ku xigsiinayaan wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin wax ajara idinkama doonayno iyadoo ilaahay og yahay rusushu inaanay dadka jeebkooda doonaynin ama waxba inay ka qaataan aanay doonaynin ayaa waxa la yidhi dadka waxaad u caddaysaan qul aayaadka kale dadka waxaad u sheegtaan baa la leeyahay inaydan wax xoolaa ka rabin wax ajara inaydan ka doon wahada huwa alaslu liddiin asalku diintu waa in ilaahay loogu dhowaado nacam haddii ninka sheekha ahi aan jeebkiisa wax ku jirin habeen iyo maalinbana uu carruurta qur-aanka u dhigaya ama kan wax dhigaya wax la siiyo weeyaan laakiin intiinan kale xoogsata idinka ajar dooni maysaan miya ama se dacwa idinma saara miya intiina xoogsataa weedhoodu ka geli og tahay dadka intaa ajarka ku siisaan kana shaqa uga dhigtayna waxa moodaysaa inuu shaqaysanayo oo xoogsanayaa dee waa wadaad xoogsanaya laakiin asalku waxa weeyaan diinta inaan laguba xoogsanin baa asal ah asalku waxa weeyaan dadku inay dareemaan inaad diin waddo inaad jeebkooda baadhanaysa inaanay moodin asalku waa kaa asalku waa inaad waxaad sheegayso janno ku raadiso nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii baycat alcaqaba athaaniya saxaabadii ansaartu marka u yimaadeen ay heshiiska la galeen heshiis bay la galeen ah inuu soo hijroodo oo markaasi ay ka mancinayaan waxay naftooda iyo maalkooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda siday u ilaaliyaan si la mida inay u ilaalin doonaan nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba iyagoo og saxaabigu ugu yaraa markay sidhaaheen nebiga baycada la gala wuxuu yidhi war suga war haddaa nebi maxamed qaadataan carab oo dhammi meel qura idinka soo wada tooganaysaanoo waa laydinla diriiri doonaa waxay idhahdeen dhaaf wiilka yarow saasaannu nebiga heshiis kula gelaynaaye su-aal bay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka ah famaa lanaa bay yidhahdeen haddaannu ku difaacno oo diinta naf iyo maalba u hurro oo gaaloo dhan u babac dhigno maa lana maxaannu annagu leenahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma odhanin aniga dabadayba madaxweyneyaal noqonaysaan ama wasiirraa noqonaysaan iminka dadku waxayla qabo waxaad odhanaysaa dee maxaan leeyahay marka aadna waxoogaaba ku soo gaadhi doona meel ay kaa soo gaadhaanba mantiqa bini aadamka ee caadigii waa kaa waxaa ila qabo maxaan leeyahay baa ku xigta saxaabadu waxay dhaheen famaa lana maxaanu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan dabadaybay ansaari wax maamulaysaa haniimadaa xoo idiin burin doonaa xoolaan idin siin doonaa magacyo maamuus baa heli doontaan midna laguma odhan lakum uljanna buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad diinta u hiilisaan jannaa leediin asalku waa kaa markaa diinta qofkii maal gashada caqli gashada xoog gashada ilaahay buu wax ka raadinaya subxaanahu wa tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala buu wax ka raadinaya ma aha meel loo soo shaqo taga asliyan waa meel ilaahay lagula xoogsado waa meel ilaahay ajar lagaga raadiyo subxaanahu wa tacaala laakiin hadday noqoto waxoogaa lagu xoogsado wadaadkana loo arko in niman xoogsanaya diintu faafi mayso diintu waxay faafaysaa markaad dhammaantiin qaadaan markaad ku xisaabtanto mantiqa ah inaad ilaahay wax ka raadinayso marka aanaad odhanin qolaannu lacag siinaayo noo qaabilsan aad tidhaahdaa anigaa mas-uuliyaddu isaarantoo fulinaya anaa mas-uuliyaddu isaarantoo fulinaya marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yaro hesho waar bal qur-aanka idinku sii dhiga anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya wadaadkii in yar isku duwaaba hadduu yidhaahdo sii wada
waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee dad minis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno waxay ahayd inaad lacagta beerdarayso si aad diin u sheegto inaad tidhaahda ilaahay waxaan kula baacmushtaraynayaa wakhtigaasi saacaddaa inaan wax dhigo walow hal ilmana wax u dhig hal qofa hanuuni wakhti aad diin ku sheegta waayi maysid wakhti aad xilkaa qaadda waayi maysid cid aad u sheegtana waayi maysid qof kasta cid ka diin yar baa joogta qof kastoo inaga mid ah cid ka diin yar baa joogta oo wax u kordhin karo intay doontaba ha leekaatee midaad tidhaahda war khamriga iska daa iyo midaad tidhaahda war salaada tuko midaad tidhaahda war ilaahay ka cabso midaad tidhaahda war gabadha si fiican u qab waa diin wuxuba